لحن جركة أكارسام هذا يا أفكار معسين يا لا هذا أنت بركة الله مسيرو مظبطي بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى. بوط معنا والبوط ما يعمل ربع يا أخي. هذا برنامج مقافر كرنا ما. إيه ما أنت دم وحلي ما شيء. بسم الله. جوجي محل جوجيا. يا. برنامج مفور كرنا مالين كسر ده حسونتي محاو. كي بوتي يا بناوي وكنا صاحب. محاو بناكم نشوف. ما هنا لو كلبها ما. جوجي سودي بديهاش كل جين الصباح سودي بديهاش. ما نقول به ما بحرت أنا بوت إيميها لإيمادنية ولا لو. رضوان يا أخي ولا حفل يا أخي ونكمل. جوجي إيه. بابا المانك اسمه شامع بسم الله كوكو وريا هاي سانا هاي ورينا إنا محاكو عدين كتان واي أنا ما سؤال سألنا. وين dadka ku cadeeyaa markasta ma arkin oo comment ma akhrisin وين وماشي adina ma la jirta adina أنا أعرف الجامعة أنا مين اللي جرتيه وري ما هنا سيك أنت سوا اللي كان بيلا جرت عدينا كاربنا واي عاو ويا برامج عاو والله بين دم موجودين مايا عاو ما ذكرت عاود waxaan bakaarna barnaamijna عاود ma jiro waxaan bakaarna cadeynaysa in adiga awriye ahaa jirto ما كان هذا أرديس ما له شبه عدين وكتيرين عدينا كاربنا كنت أعوانت وريه هاجري waxaan soo sameeyay jiri sheekan sameeyay jiri ani waxaan ahaa jiri waxaan soo dhan maxaa laga rabaa لحن جير كان اسك داف way ogtay لحن جير كان idinka yar maxaa bixinaysan sharad mudagaysin mi xambaaraysin bacdan mid هذا mi xambaar kartaa أنا خونا أنا هوسك خو لغات خو حمبارينا مركز يا مسكورعني أوكي داوداش أن جعلها waxaan rabaa yaryariiskan lixdan jirkan inaa meel iska saaro inaa meel iska saaro waxaan bacaawa idinla wadaagaa sheekaan horay u sameeyey oo halkudhigeeda ukaada adiga ukaada dee walaale sheeko aan horay u sameeyey halkudhigeeda yahay anaa idin tusiyay ukaada ada walaale أنا ما مخلين بينه لحنا كجيرة لا إسكالي ما بمخلين جعلك وقلا جعل والله sheekooyinkeeda dhageyso marka sheekadan inaan guursado ma rabo Allah qaybo badan ee lahayd inaan guursado ma rabo sheekada dhan intaas أنا ديدي جرتي ha marka xiriiryahan aanu ahaa sheekada actorka jiraya actorahan aanu ahaa فيلم مساها مسا sheeka dhan idaacad sahan ku كل إذا على ما يوضع معرفة هاي أدنى channel مرت أدنى channel أدنى channel انت وركاستن انت لقاري sheekada ila dhageysta ila maqla markii sheekada eedan qanciweys aniga maalin dambo caadi u arag maalin dambo halkaan midin la fariisanaa miskuracna waa dhamaatay hatta markii sheekada idin tusinaa facebookiga dagish hatta waa ka helay waxay meelo badan iska taataalaa laakiin sheekada heesta lagu furaayo anagana waa daawanayna idinkuna nala daawada markay sheekada dhamaataa isugu soo noqona markeeda hahay waa ka hadda aad leedin geena idinka yaabay iyada soo maaha waad maxay bilaana dhageysiyaa arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeyeen ma og tahay aadan iyo xaawaba galkacaylka awgiis bay kala irdoobeen ma og tahay heta waa kan hadda ku dhamaana haddan lays itaalsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay daawasho wacan iyo dhegeysi wacan heestan kadib aan isku soo laabano aad ayaad u mahadsantihiin arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane
haddan lays italsan midii ebertay hawshumay idlaateen aygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarto aynu jecelnahay meel walba waad ku sugantihiin si walba noo maqlaysaanba ku soo siiqa ku soo dhawaada soo daadega dhagaysta qaybtii koowaad ee sheekadii xiisaha badnayd ee la magac baxday inaan guursado mar arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane haddan lays italsan midii ebertay hawshumay idlaateen aygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno sheekadan cinwaankeedu yahay inaan guursado ma rabo waxay ka soo bilaabanaysaa waqti dheer taariikhduna ahayd 1986 waana sheeko dhab oo dhacday waxay dhexmaraysaa wiil iyo gabar Soomaaliyeed micnaha iyo ujeedada ka dambaysa sheekadanna waxay ka tarjumaysaa jacayl waxa la joogay goor fiida guriga waxa joogay dawlay hooyadeed xasna waxay aad ugu walwalaysay gabadheeda oo ka soo dib dhacday xilligii ay guriga ku soo xaadiri jirtay mar dambe oo hooyadii walaacday ayay timid dawlay hay gabadheedii maxaa kugu dhacay waa maxay waqtiga aad socotaa maxaad iigu dilaysaa walwalkii walaaca alla hooyo waxaan wax la soo aqrisanayay warmoogtii aan isku galaaska ahayn maaniga meel jiray maxaad sala walwalaysaa xaafadda waa laga soo wada jeeday gabadheedii aniga imaqal sahal hoosha hamoodine socodkaan ku faraayo saani iiga dhigayso sanadkaa jirta maanta 13 weeye saanfudeedka iska dhaaf samin xun baa jiree saadirkee calabkaaga intoo kaaga sahlaayo suubka beerta ku yaalo ha ahaada sidiisa adigoo sisindoona yaan caddey lagu siin sumcadaada ilaashoo waxaa suubin laheyd ila soo socodsii dawlay oo qancinaysa hooyadeed ayaa waxay ugu jawaab celisay subxaanka yaalkaafka mar haddii sanadkaygii 13 gaaray saadaashaad ka hadlayso ma samayn karo hooyo samaan iyo xumaana waa inaan kala saaro sumcadaydana dhowrto saxna weeye warkaagoo si walbaa la arkaaye samaan laabta u sheeg si xun ha igu xisaabin gabadheedii waxay walaacinayo waa laftaadu booday runtii ilmaa tahay kol waxaan isleeyahay ama laga aqli badiyaa balse adiga isku dadaal gabadheedii hooyo inkastoo aan yarahay caqliga ayaan ka weynahay wax kasta oo xumaan iiga imaanaysana waan dareemi karaa wixii ila xumaadana waan kuu soo sheegayaa hooyo ee waxba ha iswareerin dhanka kale daahir waa wiil aad u dhalin yara oo 17 sano jir ah wuxuu u shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada wuxuuna xafiis ku yaala gudaha wasaaradda ka yahay xog hayn wuxuu daahir la noolaa hooyadiis oo kaligiis wax aruura ka haysata wuxuu dusha ka caanshaqay gabar ay suxaafad yihiin oo ardayad ah ku sii jeeda waxbarasho arintu si kastaba ahaatee daahir jacaylkiisii waa uu qarsadaa oo cidi uma sheego go'aan wuxuu ku gaaray markaan inuu u bandhigo jacaylkiisii gabadha uu jecel yahay xaaladiisana uu si toos ugu bandhigay gabadhaasi aroortii dambe ayuu soo baxay soona maray dariiqay iskoolka ka aadi jirtay gabadhii uu caanshaqay kor dheer buu ka arkay waa la is yaqaan laakiin shukaansiga jacayl la isuma aqoon wuxuu isku horgooyay gabadhii kolkaasuu ku yiri baayinka mahad weyne dawlay waan ku salaamay diidi maayo salaantee daahir waan kaa gudoomay dadku way istugaashadaane dood ma yeelan karnaa dooni maayo faduule iiga leexa dariiqa daacadan ku socdaaye hay deersana baayo
dulmiyaad wadataaye dooda maad iga daysid dooni maye xumaane duuqayga ku jeclaaday daahir intii aysan jawaabin dowlay ayuu ku yiri bal sug aan israacsade kadibna waxa uu bilaabay inuu tiriyo tixdaan cimrigay intaan jiray cudur aan qabanba nafteydii caburiyo agajiiday awga cantar caanshaqii dilay cabla dhigay xabaashiyo qays iyo layla cirib jaray ayaa igu cilaalane cirkoo roob camiray iyo cadceed subax la moodiyey ku caleema saartay ma caawinaysaa dowlay kolkii uu sidaas ula hadlay daahir aad bay ula yaatay waxayna ku warcelisay sidan cawalaylkii goortaan caadiga u jiibsado macalmada hurdada oo naftaan kaa celceliyaa caashaqaaga awgiis ceesh inaan wadaagno calafkayga noqotaan casiiskayka toogaa calooshayda ma ogide cabashada adoon badin anaa kuu cadibano waan ku caawinayaa daahir oo markii hore cabsi ka qabay xagga dowlay kolkay sidaasi ku tiri una muujisay inay ka daran tahay isaga laabtiisa waa ay degtay wuxuuna niyada gashaday inay horeyba u jecleed oo ay kala xishoonaysay inay tiraaho waan ku jecelahay waxay ku tiri iskuul baan ka yara daahayaa nabaday waan sii baxayaa kadib daahir isagoo aad u faraxsan ayuu aaday goobtii shaqadiisa intuu sii socday jidka ayuu nafsadiisii u sii sheegay inuu shaqada fasax ka soo qaadanayo si uu mar kale ula kulmo gabadhii xiisaha badnayd ee dowlay maamule maanta waan yara xanuunsanayaa kolka waxaan rabaa inaad isiiso fasax gaaban si aan daawooyin u soo qaato daahir waxaa tahay ninka keliya ee aanan weligiis fasaxay weydiin kolka waan ku qasbanahay in aan fasax ku siiyo sidaa darteed maanta keliya ayaad fasax tahay daahir aad iyo aad ayuu ugu farxay fasaxaasi oo xambaarsanayd xigmad gaara u haydna daahir balse aan cidina la ogeyn sidii ayuu soo baxay oo uu soo cagacageeyey waa sidii lagu arki jiray qof kasta ama nafloley walba oo tiigsanaysa meel ay ku xiiso weyn tahay daahir wuxuu abbaaray halkii ugu reed dambaysay dowlay nasiib wanaag wuxuu la kulmay tiyo soo rawaxday iskuulkii ama tiyo ka soo rawaxday iskuulkii ee doonaysay inay xaafadeedii sii aado kolkuu isha ku dhuftay ayuu soo horgoobay kuna bilaabay inuu yiraahdo gacalisa dowlay waan ku salaamay gudoon weeye salaantee maxaa kuu garab yaala gacalkeenii isdhaafay guntiisa magalnaa god abeeso dhex jiifto gacantaada ha geynin go'aan baana dhex yiilee maxaa good iska keenay gugaagaa dhimanoo garaadkaa kugu gaaban gefkaad ku hadlaysid maad ka gaabsatid go'aankii hadalkayga gef miyaad u malaysay gardaraan u arkaa geed aan loogu gamban anna go'aankaygii dhegayso isagoo aad ugu mashquulay maskaxda oo la yaaban gabadhii uu kaga tegay qaab isku duubnaan ah iyo siday u beddelantay ayaa waxaa niyaddiisa ka soo burqatay erayadan dhaxantiyo qaboobaha dhacayaan habeenkiyo dharaartii kulaylaha ma dhibsada jirkaygoo dhowr biloodna dhaaftaba dhugmadii qalbiga iyo dhimirkayga doorsoon dhuuntana wax kuma rido intaasoo dhibaataa adigaygu dhaliyo dhaawac halis iga dhigay waana ku dhibtooday dhimashaan ku siganahay i dhammaystir gabar yahay haddii kale iga dhaaf waxa dhibaya uurkayga daahir kolkii uu sidaasi ku yiray ogaatayna wixii dhab ahaan u jiray ayay jawaab ahaan u celisay dhabtii waxaan ku dhahayaa dhaliishaad ka hadashiyo dhacdadaas la yaabka leh waa dheel adiga kuu taal dhagool ruux hadduu yahay war ma dhaadhacaayo dhiil buuxda dheef kale dhumuc looga shuba ma leh dhibkaad sheeganaysiyo haddii dhaawac kugu yaal dhimashana u halis tahay dhakhtar kuuma noqon karo kolkii intaasi ay tiraaya waxa ay sii raacsatay waryaa doqon yahow
kistii aan kula heesheesayay oo aan ku sharfaayay miyaad u malaysay inaan dankaa leeyahay باي باي saaxiib wiilkii daahir ahaa waa uu cuntimi wayay ereyadii ay ku tagtay gabadhii dawlay ahayd waxa uuna yidhi maya 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 kaa daacad maaha ee waad igu cayaaraysaa waxaadna ogaataa inaan sinna kaaga harayn haddii aad erka gasho lugahan ku haystaa haddii aad dhulka gashana madaxa ayaan ku haystaa inaan kaa harayo hamoodin haa kaa hare mayo kaalay gabadhu ma miyir beeshay ma miirkaa looga jiraa waa yaabay siday iila dhaqantay waa maxay maya iska daa anigaa ka salgaaraya siduu xaalku yahay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen aygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybtii koowaad ee sheekadii xiisaha badnayd ee la magac baxday inaan guursado marra erayada macaan ee sheekadan waxay maskaxdiisa ka soo maaxatay yaasiin cali xasan yaasiin shibane waana soo saaristii isku dabaridkii cali macalin xasan iyo tabintii saxaaf dib intaynu u kulmi doonno qaybtii labaad ee sheekadan waa bahda xulka sheekooyinka sahan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen aygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno haye hadda war la iskala waa marka بابا أنا كاهري لا maxaa tiri كاهري أنا كاهري لايك صاجي yes لاعب soo jabay لاعب soo jabay أنا جعيلة بخطبه ilaahay gacas galay mukugu jiraa iska bixi hadda iska fiid ha okay daawadayaasha halkan naga daawanayo waxaan idinla wadaagaynaa in sheekadu ay ahayd maqal maadaama laga baahin jiray idaacadda sahan oo maqal ay ahayd xilligaas TV ma lahayn idaacadda waxaa jira xitaa qaybtii labaad ee sheekada qaybihii kale haddii aad xiiseysaan commentiyada noogu soo qoro oo aan idin soo gelinaya laakiin Ilyas uu sheegay 60 jir iyo cunugeeda in ay inuu saxaaf yahay laacib soo jabay 60 jir maxaa kaaga dhimaa hadday u badato لا تشنجر ay Ridwan daraad maxay dhigaysay 14 jira caaw maxaa ka soo faktay 25 berina 30 ku fiirinaya runta waa ka dib ma wadaagtid baadi soo hadlay aniga inaan soo hadlo sheekadaas camal ma jili kartiin ها شكلها اوكي ان شاء الله laacib soo jaba ma tiri aabo ها waa kaas guud ahaanna waxaan jeclaan lahaa in aan caawintaas sheekadii dhageysigeedii aan kusoo gabagabeeyo qoladaan hawadaan ku cunay hayad maxaa u dhiman aabo فيديو كله oo soo dhigaya adina hawada kuudina meesha ay dacaysan waaya aniga Ilyas waa ka baxnay
marka insha Allah waxaa idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin waa ujeediin laacib soo jab inuu yahay 60 jirka aka arsan maxaa dhacay ya afka macsiin yaala لا عادي أنت مسيرو ماس بطيخ واو مسيرو موز بطيخ يا توكسي من المنطقة يا مهل والله waxay dheema anta markaa tuugsiga bilaabay sida aan jecelnahay marka insha Allah tuugsigeena noo bilaaba like sar videoga daakeshid maxaa diir ku cusubtaa subscribe noo dheh share garay asxaabta u share garay si iigan jecel u galo ya marka insha Allah sheekada hadday idin qanacsana comments-ka qaybtii labaad si ay idinku soo saaro thank you aad u mahadsantihiin waa saxaaf iyo familkiisa oo idin leh باي باي